وكيلك الصوماليلان ee dalka Djibouti Ambassador Abdifataax Saciid Axmed oo ra'iisul gaarsiga telefishinka qaranka Soomaaliland ayaa ka hadlay xiriirka ka dhaxeeya Somaliland iyo Djibouti iyada iskaashiga dhaqaalaha ammaanka iyo soo socodka bulshada xiriirku maanta meel aad u wanaagsan buu maray meeshii ugu sareysay haddaan eegno waxaan anagu ka shaqeynaa waxa weeye safiirka ama wakiilka marka lagu leeyahay waa in muhiimadda koowaad ay noqoto isku xirka labada dal arrimaha siyaasadda dhaqaalaha amniga maxaa haydo isku socodka labada moogtahay dal jaarkan ahay walaalaha Djibouti runtii waxaan anagu oran karaa saaxiibka koowaad aynu leenahay wada duufaanadii abaarihiiba ka horeeyay sida noogu soo gurmadeen tii ugu dambeysay waxa ahayd 44 gaaro oo raashina noo soo diray abaartii u dambeysay waxaan runtii full protocol baan haysanaa haday noqoto diplomatic community haday noqoto calankeena safaaraddeena ka taagan haday aragteenba haday noqoto wax alla waxa kale immunitiska ay leeyihiin diplomatiska kale caalamka jooga runtii waan leenahay waad aragtaan filaya xasan oo shirar badan ayaan lagu yeeraa kamid yihiin shirka baarlamaanka madaxweynaha tusaalaha madaxweynihii Rwanda yimid Paul Kagame baarlamaanka ayaa shirkiisii noo yeeray safiirada caalamka shir walba la qabanayo safiirkii Mareykanka kii Sacuudiga mid walba ag fadhina meel caalamka dhacda ma jirto wakiilka Soomaaliland ee dalka Djibouti Ambassador Abdifataax Saciid Axmed wuxuu fariin u diray shacabka reer Soomaaliland xisbiyada qaranka wuxuuna tilmaamay cidda awood u leh inay bulshada reer Soomaaliland ugu baaqdo inay qabato shirweyne wuxuuna xisbiyada qaranka u soo jeediyay inay meel uga soo jeestaan sidii horumarka dalka iyo bulshada iyo wadajirka looga shaqeyn lahaa shacabku waxa mar walba ka fiijignaadaan kuwa dhexdeena ku jira ee doonaya carqaladaha inay sameeyaan dastuurka inay jabiyaan iyagoo xisbiyo qaran ku soo baxay xisbiyada qaar weyn kuwa qaar maanta sheeganaya iyagoo leh waxaan xisbiyada ugu horeeyay maantana ayaan daro iyagii baa leh maxaa haydo hal sameeyay shir qaran iyo shir beelad waana ayaan daro weyn ahayn marka waxaan dadka waxba jaawareerin dadkooda ka aqli badan yihiin adar dawladdeena aan ilaashano shacabo wadogtiin dhibaatada Soomaaliland gaadhay waa la qaxay waa la soo noqday dagaal sokeeya maanta wala xukuumad wala mucaarad cid aad ka yeeshaan jirin maxaa nabad baan haysanaa nabadda naas la nooga leedahay bariyahan waxaad maqlaysay shirbeelada la sameeynaya waxa la sameynayaa tala qaran shir qaran waxa ugu yeeri karay dastuurka Soomaaliland ku cad oo madaxweynaha kaliya dadka taa inay fahmaan ba muhiim shirka qaran madaxweynaha ayuu baa yeeri karay wala xisbi qaran baa yeeri karay wala mid kale oo 4% wax ku hela yeeri karay waa in madaxweynuhu baa go'aamin karay marka dadku waxaan leenahay war meel wanaagsan wax noo marayaan nimankan xisbiyada mucaaradka saaxiibada dadar waxa wanaaga ay xiriirkan sameynayna adar xumeynayna gabagabadii wakiilka Soomaaliland dalka Djibouti wuxuu ka hadlay isbedelada ka socda geeska Afrika iyo kaalinta ay Soomaaliland ka qaadanayso isbedelada sidoo kale wuxuu ka hadlay faragelinta ay Soomaaliya ku sameynayso arrimaha horumarka ee dhinaca bini'aadanimada Soomaaliland dawladdan farmaajo mar walba waxaad madoonayso tafaaxaydatay in Soomaaliland runtii ay maxaa hay'adaha neeraha cuna qabateen oo kale isku dayeen lagu sameeyo mar walba ay ku hawlanta haddana ay leeyihiin mar walba wada hadal baan doonaynaa daadar marka labadaas isma qabtaan marka waxaan dawladda farmaajo ku boorinaynaa in ay runtii ka waantoobaan haddii doonayaan saaxad sax ah lagu wada hadlo daacada hal yimaadaan runtii aad baan u soo dhaweynayaa runtii isbedelka geeska ka socda wax la soo dhaweeyo runtii lagu farxo laba wadano dhowr iyo 20 sanadood kala xidhnaa sida Eritrea Ethiopia walaalaha oo shacabkooda isku dad yihiin aad baan u soo dhaweynayaa xukuumadda ahaan iyo dad ahaanba anaguna waxaan rajaynaynaa sida aad sheegtay in laba dal oo walaalaha Soomaaliya iyo Somaliland ay noqdaan